koox hubaysan ayaa degmada Luuq ee gobolka Gadow waxay ku dishay mid kamid ah nabadoonnadii halkaasi ku sugnaa goobta ayuuna ka baxsaday xiisad ka dhalatay dilka nabadoon halkaasi lagu dilay ayaana ka taagan gudaha degmadaasi Luuq soo dhawaada saaxiibayaal xogtan oo dhameystiran ayaan halkan doonayaa inaan kula wadaago Cumar Guux ayaan ahay hadii uu muuqaalka idin soo gaarana si shargaray oo saaxiibadana la sii wadaaga qaybta hoose ee faaladan aragtidina nagula wadaaga markale soo dhawaada saaxiibayaal wararka ka imaanaya degmada Luuq ee gobolka Gadow waxa ay ku soo waramayaan in subaxnimadii hore ee saaka nin biskoolad ku hubaysan uu dil u geystay mid kamid ah nabadoonnadii halkaasi ku sugnaa ee beelaha halkaasi ku dagaalamay bil ka hor uu ka soo jeedo la sheegay in markii uu dilka geystayna uu goobta isaga baxsaday waxa la warinayaa in nabadoonka uu ku sugnaa suuq xoolaha lagu kala iibsado oo ku taala gudaha degmadaasi Luuq waxaana la warinayaa in isaga oo goobtiisa ku sugan nin ka soo degay mooto bajaaj sidoo kalena uu afka u duubnaa aan ilaa iyo haddana la aqoonsan inta uu mootada ka soo degay kadibna dhowr xabadood kaga dhuftay qaybaha sare ee jirkiisa halkaas ayuuna dhaawac culus ka soo gaaray nabadoonka oo ugu dambeyn isaga oo loo wado xarun caafimaad ayuuna geeriyooday nabadoonka la dilay waxaa magaciisu dadka goobjoogayaasha ah ay ku sheegeen nabadoon aadan isaaq yarow waxaana uu ka mid ahaa sida la tilmaamay mid ka mid ah nabadoonnada halkaasi ku sugnaa oo beelihii dhowaan halkaa ku dagaalamay kasoo jeeda mid ka mid ah waxaana la warinayaa in dilka markii uu dhacay kadib halka uu dilka ka dhacay ay gaareen ciidamo kuwa ammaanka ah oo howlgallo sameeyey laakiin ku guuleysan waayey inay gacanta kusoo dhigaan ninkaasi hubaysan oo dilka u geystay nabadoonka ilaa iyo hadda ma jirto sabab rasmi ah oo la xaqiijiyey oo dilkan loogu geystay nabadoonka laakiin dad goobjoogayaal ah oo noo waramay waxay xaqiijinayaan inay u maleynayaan in loo dilay aanab qabiil oo halkaasi maalmihii lasoo dhaafay ka taagnayd kadib dagaalkii labada beelood ee khasaaraha sababay halkaa ku dhex maray wallow markii dambe la xaliyey xiisad halkaa ka taagana aysan jirin tan iyo markii waa xalka laga gaaray dagaalkaasi saaka markii la dilay nabadoonka beesha laga dilay waxaa la wariyey in ay xiisad ama dhaqdhaqaaq sameeyeen oo ciidan oo ay ku doonayaan inay gacanta kusoo dhigaan ninkii dilka u geystay nabadoonka sidoo kalena sheegeen in aanan markaasi aysan qaadan doonin cidda nabadoonka dishay oo goobta ka baxsatay oo sida la sheegayna ahaa nin biskoolad ku hubaysan oo afka uu u duubnaa islamarkaana ay ka go-an tahay inay gacanta kusoo dhigaan taasi ayaana sababtay in magaalada ay muddo gasho kala xirnaansho iyo sidoo kale kala shaki beelihii halkaasi ku dagaalamay ee xiisadooda xalka laga gaaray ay mar kale iyaguna is-horfadhiistaan oo weliba qoryaha isku qaataan lama oga waxa ka dambeyn doono dilkan maamulka degmada Luuq ee gobolka Gadow kama hadlin inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in saacadaha soo socda la filayo in uu ka hadlo misna uu war ka soo saaro wuxuu ku soo kordhay saaxiibayaal arintana barnaamijyadeena wararkeena dambe ayaan idin kugu soo gudbin doonaa